Do it for the love, we not do it for the likes. Make them know success don't come overnight. No make them know a substance over hype. Do it for the love, we not do it for the likes. السلام عليكم كولبا ألف باتا ABCD 1 2 3 وأنا وأفرتون مالين عصب أركت عصب كسر دو channel كيجا هذا كاش فيديو كان لايك يتابو الرأي هدارتنا دي بتدكم تكوساقر أركت سان عمل هدارتي سبسكرايب كله كسي ما أنت فيديو وحكو سابسين هاي دعلما وحاوا إلى تلي إنتانا تلذ بلابن وحاربا إن يرقدر حيسينا أني وإنا نس حيسيو هذا موامي شرف دور بريسو بحسا شرف دور وسو كفتي وسو وريكتي وسو دباتوتي لكن الويب سايت كبريو وحنقونا يا لايف 6 o'clock magaalada ani aan joogo United Kingdom markay 6 o'clock anaga noo tahay iibsan kartaan brandkayga sharaf door waxa loogu talagalay qof kasta nin naag ajnabi Soomaali hooyo awoow abshaxan abooto everyone laakiin hadda waxa ugu horeeya waa silk material anigu shakhsi ahaan materialdaas waxaan ka dhigtaa qamaar sababta uga dhigto waxay tahay silk markay tahay tinta markaa googoynayso qamaaraha hadda xiranahay hadaad wax ka hoos marinin tinta ka siibmayso soo kuwayga ani qamaarahayga tinta kama siibanayaan because waa silk waa xariir you know very soft so hadaad meel ku xirto ama biin ku xirto kaama degaayo caadi hadaa u saarato in yar inuu ka degdegaa laga yaaba ba markasta tintaada u fiican tahay maxaa kale oo rabay dunida dacalaheeda meel kasto address leh oo car detail aad leedahay macnaha waxaan deganahay 234 laami hebel postcode hebel bankaarkeena waa kan lacagta halkaas ka baxsan kartaan meel kasto waa ka dhigi kartid waa lagu keenayaa anyway oo address iyo car leh waa ka order gareysan kartaa marka hal garab qabto no bilaabo tadaala marka qofka ugu koowaad waxa u bixineenaa Jamal daalamar uu soo dirsaday laakiin waxa jeclaystay in yar inaan soo koobo oo wada akhrinin because waxa uu wiilkan sameeyay Ilaahay oo fududeeyo akhradana muu haboono adduunyada dhibaato ku dhici karto aniga shakhsi ahaan wax saan amal hadaa arko waa inaan report gareeyo laakiin meeshuu joogo meel la report garee kara dadka ma aha wiilkan wuxuu yiri markuu yaraab uu qof la dagaalay oo da'diisa markuu la dagaalay dhagax buu ku dhuftay dhagaxii markuu ku dhuftay wiilkii miirkii baa ka tagay wuuna geeriyooday ilaahu naxariisto wiilkan wuu cararay qofna muuna u sheegin dadka wiilka uu ka dhalshay qof dilay ilaa hadda ma ogo asaga wuu weynaaday hadda wuxuu yiri markasta aan jiifto waa ku qarwaa wiilkii oo bursanaayo naf baan qaaday waa harsal laahay waxaan noqday paranoid inaan xabad wato markasta ma aragtay cabsado paranoid waxa qofka markuu waxyaalo isdhaaya kugu dhacaayo aan baquu yiri oo markasta aniga aan is ilaaliyaa noqotay hadda waxaan rabaa yiri inaan dadkii iskaga noqdo oo aan dhaho aniga wiilkaas dilay markii aan yaraa ama ha i cafiyaan ama ha i dilaan because nolosha hadda ku jiro ma ku sii jiri karo abay ila tali so waa soo gaabi detailka dhan uu isiiyay ma la sheegin because waxa boon ma aha in la sheego walaal taladaadaan kugu raacsanaa waxa waaye saa ooga fikirtid aakhiradaada waxa fiican hadda inay intay goorgoor tahay aad iskaga sheegto yaa sanadee kugu qaateen laakiin waxa laga yaabaa inay familka ku cafiyaan adiguna markasta dambi dhaaf Ilaahay weydiiso sababtay familka ku cafinayaan waxa laga yaabaa inay noqoto maadaama aad imaatay oo aad sheegtay because qof xun hadaa ahaan lahayd waa qarsan lahayd ilaa maalinta aad ka geeriyooto yes waa soo daaday laakiin at least hadaa rabtaa inaad sheegto waa yareed waxa xataa bareer ma u sameysay hadaa bareer u sameysay way duwan tahay laakiin dad istagaalay laba caruur oo istagaashay oo mid dhagax qaatay midka kale ku dhuftay oo kaas noqotay malagiisa u galay dhagaxaas waxa laga yaabaa familkii inay ku maaragtan xariistaan oo ay ku cafiyaan عفسكاس لو عفناينا هادودا آخرadaada maaragtay inaad ku seegin meel fiican soo aniga waxa kula talin lahaa inaad u tagto familkii waxay ahaataba dadkaaga wadatid loo tago cafis weydiisatid sida waxa u dhaceen wixii ka keenay waxa dhan u sheegtid kadibna maaragtay aad saas dambi dhaaf ku weydiisato familka hadii caroodaan maanta dhahaan wiilkaan naftiisa ha nolo qaado diin ahaan way weydiisan karaan laakiin uma maleema hada saas inay dadka ku dhaqdhaqsadaan oo dhahaan qofka nafta nolo qaato badana hada dadku waxay sameeyaan inay diiq qaataan laakiin labada meel waa inaad ka fikirtid dhanka naftaada ay qaadi karaan
hadday naftaada qaadinna diyay ku weydiisan karaan. soo markaste ehelkaaga waxaan dhihi lahaa ra'yi weydiiso, laakiin waxaa ku seexan karto oo ku hooyo karta sameey. hadday kaasoo go-day waa kugu dhiirigelinayaa. uma maleemaayo maanta naftaada inay qaadayaan. xumaataa soo sameysay, xumaatadii inaad u bareernaa dhici karto. it feels like inaad u bareeran markaa akhrinayo qalada ay la ahayd wax qalad ku dhacay. soo uma maleemaayo hadalka ay gooyaba, uma maleemaayo in aad kas u sameysay. kas haddaad u sameysay qof wanaagsan ma tihid, laakiin kas haddaad u sameynin wanaagaagii inay ka arkaana laga yaabaa. haddii aad u imaato aad tiraahdo wixii waan sameeyey, waa cabsaday, waan cararay, waa weynaaday, ilaa hadda igu daba jirtaa, waxaan go-aansadana ma aragtay inaa hadda dembi dhaafni weydiisto. ilaahigaygii weyno waaxida waa u toobad keenay, adinkiinana wili waxaa rabaa inaan weydiisto ma aragtay cafis. toobadkeentana waa sii wadi doonaa. waxaa rabtiina maantay waan ii sameynaya. naftii aan qaaday ma soo celi karo, laakiin waan isku dayayaa dunidan ma aragtay intaa sameyn kara inaan ii sameeyo. aakhirana markaas inqaabta ilaahay marsiinaya ilaahay weyn oo waaxid ay yaqaano. soo haddii laga arko xarafkaas Soomaali maxaa lagu dhahaa, guilt inay kaa dareemaan iyo consciouskaaga inuu wanaagsan yahay, hadday kaa dareemaan inay ku carfiyaana laga yaabaa. carfiskaasna saan kuu sheegay aakhiradaadu ku wanaajinayaa. marka walaalayaal adinkiina daawanaya talada haysiin please commentka kusoo qora. si fiican ilaahay ha ka dhigo inay kugu dhamaato, laakiin saa ku hooyatid markasta waxaa fiican dembigaaga in aad sheegato soo ilaahayna ku arko inaad rabtid inaad ka toobad keento. qofka dembiga ka gashana dadkiisa si ku cafiyaan way haboon tahay inaad iska hadasho. wiilkaas geeriyooday markasta wax u bixi, sadaqo u bixi, u duceey, toobad keen, markasta ilaahay u dhawow, asagana u duceey marxuumkaas, adiguna markasta ilaahay u dhawow oo cafis weydiiso. yaa walaalayaal taladiina comment ku soo qorta. qofka kale daale markaan qofka soo dirsato waxaan u bixinaynaa kun shooriso. waxaa tiray laba wiil aan la socdaa. midka koowaad waa wiil qurxoon, wax bartay, lacag haysta. midka labaadna waxaa waaye mid iska roon oo lacag haysanin laakiin zaa'id ii jecel. anigu ma aqaano midkaan doorto, labadoodaba waqti waa geliyey, ilaa haddana go-aan waa gaari la ahay. adigu haddaa ahaan laheyd ama qofka i daawanayo hadduu tala isii karo midkee dooran lahdeen? kan quruxda badan oo lacagta haysta ama kan saas u rooneyn oo i jecel? horta aniga hada fluus. I like money talks to me. waxa ayaatan u maqnaayo dhan waa fluus. I like fluus. qofkii dhaho fluus ma jecelina baan buu sheegaya, ma fahanti? marka nin fluus haysta oo qurxoon iyo nin fluusaas haysanin umadiisa iskaga jira qurux ahaan laakiin ku rabo, midkee aadi lahayd? anigu shakhsi ahaan waxaan aadi lahaa anoo fluuska jecel midka aniga ay rabo, kas waxaan aaminsanahay qofka adiga ku rabo si fiican inuu kula dhaqmaayo. farxad lama gada karo laakiin lacag waa la heli karaa. soo ninkan lacagta hadda haysanin farxad hadduu ku siinaayo iyo rabid ay jirto, rabid uu adiga ku rabo uu ku dadaalaya oo hadhoodii lacag ku keeni karaa. kaa ku raacdo laakiin lacag tomorrow lacagta waay karaa. marka maxaa sameynaa lacagta hadduu waayo rabidna meesha jirin? dee fantashulu fil ardi wuxuu ku leeyahay albaabka fur, dacaskii maalintii ku imaatay qaado, ilbaaka ka bax. marka lacag way imaataa way tagtaa, laakiin wanaag iyo jecel iyo kalgaceel waxa waaye raasumaal ay ku noqon kartaa. waa haysan kartaa forever. lacag kastoo aa haysatid ma ku fududaanayso in aad jecel heshid. lacag haddaa haysatid dhibaatadeedu way badan tahay. hadda kan lacagta leh waxaa laga yaabaa 1000 hablood inay saf ugu jiraan oo asaga wareersan yahay uu leeyahay tee ku rabto oo lacagtaada rabin, because qofkii lacagta leh qof kasta buu rabaa, ma fahanti? because anagu dhan fluusaa jecelnahay, laakiin midka rabida hadda ku haya rabid rasmiya waaye, adiguna rabid rasmiya tusi kartaa oo labadiina maad isku raacin lacagii waxaas. kan hadda lacagta haysto haddaad dooratid xataa at the back of his head madaxiisa gadaashiisa waxaa laga yaabaa inuu isdhahayo tan fluuskay kugu soo raacday. saa kuu sheegay fluuskana waa la dhumi karaa. soo anigu shakhsi ahaan waxaa aadi lahaa midkii rabo. adduunyada waxaa ugu jeclahay oo markasta aan dhahaa waxaa rabaa calaf inaan ku darsado. ilaahay igu daro, aniga kuma darsan kara. ilaahay calaf inuu igu daro nin aniga ee rabaa, macnaha rabidda aan rabo tuu asaga ii haaya ay ka badan tahay. because markaas ma lagu xumeynayo mugtaa waa lagu rabaaye. baa anaga waxaa rabnaa ikoko koolisay kalgacal waraabisay
kashkiyo laabteedii imay xarfaa anyways nala kolkooliyo baa rabnaa marka dadweynahana daawanayo walaalahayna daawanayo waxay kula talin doonaan ma aqaan laakiin aan waxaan ku dhahayaa midka fuluska haysanin oo saas iskaga qurxooneen iska raac because wuu ku rabaa rabida muhiim ah wixii ku rabaa la rabaa aragtida weligeed ma jirayso markii la duqobo aragtida zero ay noqonaysaa maaragtay lacagtuna waa wax imaata tagta kan hadda wax haysanin waxaa laga yaabaa tomorrow inuu millionaire noqdo marka markasta qofkii ku raba aad kan quruxda leh quruxda waxa way tagaysaa lacagtaas inuu waayaa laga yaabaa markasta hadaa raacdina inuu isdhaho tan lacag ku soo raacday competition kan uu badan yahay anina qurxan ma bari tusaba anyways inta ku soo gabagabeynaya wax kasto tala haysi please comment ku soo qoraa nin lacag leh ma raaci lahayd ama ninkii ku rabo oo kalgacayl badan ku haya raaci lahayd wiilkii koowaadna maxaa kula tali lahayd inuu dadka u sheego ama inuu iska aamuso taladiina dhan waa loo baahan yahay because anaga dhan waxaan nahay team isla shaqeeya oo walaalo ah waxa isku dayayaa weekend laba video inaan soo geliyo dacwada ay iga badiseen anigu xataa waan xiisaysa igu xiisteen kalgaceelka ii haysaan mid ka badan aan haya waxa ii soo dirsateen reaction badan inaan sameeyo reactionka saas ugu ma fiicino hadda la bilbilaabaya because xogaha daala markaa waa break inaan ka qaato positivity ma fahamtay saaxiibeyga isku dayaya inaan u soo yeerto oo ay ka yaabiyo ii soo dira adinkiina videoyaal ana fiirsanayo kan iga yaabiyo ayaga uu keenay doona soo bandhigi doona saaxiibeyga hadda waxay ku jiraan damaashaad ila ciyaar holiday aniga laakiin fuluska saas ku ahay inta soo taaganahay ma waa taamaan haynin but anyways holiday markay ka soo noqdaan waa keenay doona قرابتها لغو سلام peace and love لو بقولوا كنا قدونا هني make sure you subscribe take care adios